wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraan oo booqasho hawleed ka yimid maanta caasimadda gobolka Awdal ee Boorama ayaa xadhiga ka jaray wadada laamiga ee u dhaxaysa magaalooyinka Dil iyo Boorama. Wadadaas oo dhismaheedu socday muddo 3 sano iyo badh, isla markaasna ay kaashadeen bulshada reer Boorama iyo xukuumadda Somaliland. sidoo kale madaxweynaha iyo wafdigiisu waxa ay dhagax dhigeen dhismaha wadada u dhaxaysa Boorama iyo magaalada Looyacado. Wafdigu hogaaminayay waxa ay shir ballaaran kula yeesheen xarunta jaamacadda Camuud qaybaha bulshada oo ay hogaaminayeen ururka u dhismaha wadada ee gobolada Awdal iyo Saleed ee Gaasirda. ururkaas oo ah kii fuliyay dhismaha wadada laamiga ee u dhaxaysa Dila iyo Boorama, jidkaas oo dhererkiisu waa 28 kiiloomitir. kulankan ka dhacay hoolka shirarka ee jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama waxaa goobjoog ka ah maamulka gobolka Awdal ka degmada Boorama, qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka iyo wafdiga hogaaminayay madaxweynaha Somaliland Axmed Siiraan. ugu horreyn waxaa halkaas warbixin dheer oo isugu jirta mahadnaq iyo taariikhdii dhismaha jidka u dhexeeya magaalooyinka Dila iyo Boorama ka warbixiyay gudoomiyaha ururka Asarta Mudane Cabdilaahi Xaaji Ciise. طريق لبس ما يسجل لنا في سوريا أيام هذا الأيام. وأوكي ما مكان مشروع هذا الأولي إلا ولا تحتاج ولا تحتاج يا والدتي يا تكبيسان دولة كان كيسان كان عاي طريق بس ما يسجل الله إهلال هي عالم هي إهلال مو يلا طريق بس ما يسجل من الوقت وحنا بالميلة إلى طريق ما يسجل له أيام هذا وأنا ياسر أدري طريقنا سوينا 3 كيلومتر تسابق هاي وحنا نقول لي فرسين هبنا ورئيس قولي أوكي يا مكان أنا وأنا وأنا ياسر كذا 7 كيلومتر كنتي وأنا كان كذا هو وين أتكلم نقاط كاملة يوم بجوزنا يا مكان وأنا يا وحيدها في حال الموضوع وحكم كذلك لو نجي بالحوين أحمد محمود سنايا وحكومة الجمهورية. فقط في الشيء يتطور الأمور الرئيسي وحي كتر صريح إلى طريقة بلا بورما 4 كيلومتر أي بحيات. 4 كيلومتر قبل ما لم يكن 1 كيلومتر أو طريقة كهرباء waxay u dhiibeen fulinteeda asarta oo ka wakiila bulshada gobolada Awdal iyo Saleed. ilaahay mahadiyoya inuu madaxweyne Axmed Maxamuud Siiraan noqdo madaxweynihii soo jiray ilaa waqtigii isticmaalka ee jidka dhismihiisii sameeyey. waxaa maanta farxad kale waa inaynu dhagax dhignay طريقي ودحيل لويعado iyo Boorama oo anigoo ku hadlaya afka Asarta afka shicibka gobolada Awdal iyo Saleed waxaan badan qaadaynaa inaan heliyaho طريقة u qalayno sidoo kale waxaa kulankan ka hadlay madaxdu qiimo fara badan kuwaas oo aad u ammaanay ururka Asarta iyo iskaashiga miradhada ee bulshada iyo xukuumadda. sidoo kale gudoomiyaha degmada Boorama Suleymaan Xasan Xadi, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdi Nuur Sugaal, ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Awdal ayaa iyaguna ka hadlay waxqabadka bulshada reer Awdal ay ku tallaabsadeen iyagoo gacan ka helaya xukuumadda Somaliland. iyo ururka kale la socota in maanta halkii ugu horeysay ee waxqabad oo ka bilaabay waxbarashada oo ka bilaabay inay tahay maanta ayaa ku soo guurinaya madaxweynaha Somaliland. waxaan ka caddeynaya maalintii ugu horeysay ee ay xaladhiga 4 kiiloomitir mudane madaxweyne halka runtii xam badan baa tahay oo islaha turu dhagax dhigaas ku noqon doona sidii kuwii hore. laakiin waxaan qaacidada aqoon ku lahaa oo aad soo shaqaysay warbaahinta Soomaaliyeed. ugu dambeynna madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraan ayaa isaguna sheegay ahmiyadda ay leedahay howlaha iska wax u qabsada ee bulshada iyo dawladdu iska kaashadaan, wuxuuna ammaanay mas'uuliyiinta ururka Asarta.
waxaan u faraxsanahay inaan kan waxaan u faraxsanahay inaan waxbarashadii lagu yaqiinay waxbarashadii lagu yaqiinay aad iyo soo dhawaynta lagu yaqiinay aad iyo aad uga muuqato halkan iyo intaan magaalada mar walba sidii shacbiga dawlad loo soo dhaweynay intii aan hore u fulinin maahan inaan mar walba diyaar u nahay inaan wixii horumara ee dalka laga sameynayo sida gobollada kaleba iyo gobolka gaar ahaan iyo goboleynta kaleba aan mar walba diyaar u nahay inaan u hurno maal xoolo iyo waxaa cagnaynta kuwabeynayno dalka horumarkiisu wadooyinkiisu waxa isku xidha waa waxa isu keena waa waxa ummadda isu xidha waa waxa walaaleeya waa waxa dalka si kastaba ha ahaatee safarka madaxweynuhu ku yimid gobolka Awdal ayaa muhiimad gaar ah ugu tilmaamay reer Awdal maadaama uu wadadii ugu horeysay shacabka iyo xukuumaddu iska kaashadaan ay noqotay mid hirgasha oo laami ah isla markaasna laba wado oo culays ku ay bulshada reer Awdal uu madaxweynuhu maanta dhagax dhigay wadooyinkaas oo kala wadada u dhaxaysa magaalada Boorama iyo Looyacad oo ku taala xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Djibouti wadadaas oo dhererkeedu dhan yahay ilaa ku dhawaad 300 oo kilomitir iyo wadada kale oo ah wadada u dhaxaysa magaalooyinka kala Baydh iyo Dila oo isku xidha gobolada waqooyi galbeed iyo Awdal wadadaas oo dhererkeedu dhan yahay 18 kilomitir wadadaas oo hore laami u ahaan jirtay ayna dhistay xukuumadda dhexe Soomaaliya balse waqtigan uu burbur fara badan ku yimid ayna u baahan tahay dayactir xoog leh ayuu madaxweynaha Soomaaliland iyadana maanta dhagax dhigay Cabdi Casiis Said Muuse shabakada caalamiga Xeega News.com